munaasabad ballaadhan oo xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane wasiir ku-xigeenkii hore Axmed Xuseen Roble iyo wasiir dawlihii hore Maxamed Xaaji Aadan cilmi isla markaasina si rasmi ah uga wareegayeen wasiirka cusub ee dhawaanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya soo magacaabay Professor Yaasiin Maxamuud Xiin Faarax Faratoon iyo Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame Dhagaweyne ayaa ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare waxaana ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada aqoon-yahan xildhibaano waxgarad iyo hay'adaha kala duwan ee la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ugu horreyn madashaasi waxaa ka hadlay xubno kamid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda waxbarashada gudoomiyaasha gobolada hay'adaha kala duwan ee wasaaradda la shaqeeya iyo xubno marti sharaf ah kuwaas oo dhamaantood iska daba maray in wasiir Cabdilaahi Ibraahim Habane iyo xubnihii wasiirada ay ku xasuusan doonaan halade go'aan iyo guurtinimo isla markaasina wax badan ay ka qabteen muddadii koobneed ee ay joogeen wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare afayeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Cabdilaahi Ibraahim Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax iyo sidoo kale wasiir Saleebaan Cali Koore ayaa ka warmay baaxadda waxbarashada qaranku ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in la garab istaago وحقيقة وخصوصا يا وسير عبد الله إبراهيم هبرة عبد الله دارة وأنت هذا الصو ولو عقبة بيكوني من يوم اختيار كاركود حضنا وابن عبد وأنت هذا الصو كنت كل سنة وبتصي هذه بأن أقرن كريا وزارة بين هرمك عيسى ما يصير نكى شوي باقرانية نكى شوي أيون باقرانية بين قرب شوي marka uu Jarmal iskuulo ku arkay indhaha ku dhufto iyo halka wixii ka jiray daasadiha aan booraha ah iyo maanta meesha la marayo wuxuu garanayaa in dadku wax qabtay waxaan jecelahay aad ugu soo ducayno runtii wasiirkii oo wasiir ku-xigeenkii oo runtii ma taqaanaa aan aad iyo aad ugu xasuusan doono wuxuu ahaa team work wada shaqayn go'aan wal oo la qaadanayo waa la isla gaari jiray dadka qaar waxay isweydiinayaan tolo maayo maxay ka soo doonaan halkan waxa weeye annaga shaqo weyn baa naga dhaxaysa wasaaradda waxbarashada degmooyinka qaar halo wareegaan degmooyinka qaar weli u warsanaadaan mashruuca maamul daadejinta in dowladaha hoose waxbarashada hoose lagu hoojiyo ayaan wasaaradda waxbarashada ka wada shaqeynaa Cabdilaahi aad baan ugu mahadnaqayaa iyo tiimkiisa tagay wasiirada qolada soo socoto Yaasiin oo isna ahaa wasiirkii daaqiliga la minister weeyii inuu halka yimaado aad baan isagana ugu faraxsanahay isbedelka waxaan Ilaahay ka baryaynaa isbedel khayr leh wasiirkeena horena waxaan ku soo gooteynaa farxad iyo niyad sami iyo reereen wasiirkeena cusubna waxaan ku soo dhaweynaynaa waliba ugu ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkee wasiiradii ka horeeyay ay gaarsiiyeen ka sii fogeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Haldoor Axmed Abubakar Maxamed ayaa isna ka waramay waxqabadadii qiimaha badnaa wasaaradda u qabsoomay muddadii ay xilka hayeen waxaanu agaasimuhu tilmaamay inay sii sagootinayaan wasiirka xilkaasi ka tagay isla markaasina ay soo dhaweynayaan wasiirada cusub waxyaalaha qorshaha xoogga saaraya waxaa ka mid ah in markaa kormeerka la xoojiyo in waxbarashada farsamada gacanta la xoojiyo iyo markaa la xoojiyo markaa tayada waxbarashada ugu dambeyntii waxaa dhashay markaa dawlad cusub dhalatay oo madax ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ka dhashay markaa wasaaraddeena de maamul cusub ay yimi wasiir baa yimi wasiir ku-xigeen cusub baa yimi kale isbedel shaqo iman doona isbedel maamul baa iman doona waxaana iman doona markaa dardargelin shaqo lagu sameeyo xilka qarankuna kale waxa weeye waa meerto agaasimaha tacliin sare wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Dr. Yuusuf Axmed Cali ayaa isla tilmaamay in loo baahan yahay in xiliyadan oo kale la isticmaalo isla markaasina qaranka oo u guntadaan sidii hawsha halkaasi looga sii anba qaadi lahaa wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Axmed Xuseen Roble oo xilkaasi ku wareejinayay wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed ayaa isna tilmaamay in wax badan ay u qabsoomeen isla markaasina ay soo dhaweynayaan mas'uuliyiinta cusub barashadu waa tiirka ugu muhiimsan marka la eego aqoonta waxa soo raaca caafimaadka biyaha beeraha oo dhuligi soo saara inaynu intaaba xoogga saaro ayaa la inooga baahan yahay dugsiyada farsamada gacanta oo kaliya maaha kuwa beeraha iyo kuwa xanaanada xoolaha waxaa leeyahay xoogga la saaray iyagana
wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cabdiqaadir maxamuud sheekh maxamed warsame dhagaweyne ayaa isna tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uga mahadnaqayo xilka ballaadhan oo u egmaday waxaanu ilaahay ka baryay inuu xilkaasi ku garab galo oo aan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aniga wasiirkaaga noo egmaday inaan wasaaradda nimaadno isaga iyo idinkaba iyo ummadda Soomaaliland iyo ilaahay hortii waxaanu ka ballan qaadaynaa inaanu si cadaalad ah oo aan kala jeclaysi lahayn oo aanan u malayn maayo anigu qof kaliya wasaaradda ka garanayeen inaanu si cadaalad ah idinkula shaqayn doono oo idin hormarin doono haddii la yiraahdo horumarkuna wuxuu ka imanayaa aqoonta idinka idinku jirto inaanu ku hadin haddii la yiraahdo taayadana ku darno wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaa isna si qoto dheer uga warmay dadaaladii wasaaradda waxbarashada ay u gashay diyaarinta manhajka qaranka dhismaha dugsiyadii boardingka ee dalka dib looga dhisay qaybihii kala duwanaa dugsiyada farsamada iyo sidoo kale mideyntii manhajka qaranka ee dugsiyada gaarka iyo kuwa dawliga waxaanu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan xilka inuu ku wareejiyo wasiirka cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay macalinkaygii saaxiibkayga ku wareejiyo wasaaradda waxbarashada iyo Cabdulqaadirba oo maanta meel laga uki karo oo laga dabageli karo taagan wixii xogay hoose waanu siin doonaa waanu la joognaa waan ka dharginaynaa macluumaadka iyo wixii caqabadey jira iyo sida loo gudbiyay talana oo muuqata annagaba mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen siyaasadii waxbarashada waxaan ka amba bixi weyday ilaa 93 mar walba review wasaaradda lafteedii ay ka amba bixi weyday shirweyn u qabanay 96 2016 marriage warana ma bixinay maantana council ministerska xafiiska madaxweynaha taala kubiyeyna oo kuseena halka baa laga ansixin doonaa wasiirka cusub ee dhawaanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo magacaabay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Dr. Yaasiin Maxamuud Xiir Faarax Faratoon ayaa isna tilmaamay in wasaaradda waxbarashadu ay tahay hobbigiisa isla markaasina uu aad ugu faraxsan yahay inuu xilkaasi qabto waxaan marka hore bogaadinayaa oo ammaan u soo jeedinayaa oo aan aad ugu faraxsanahay inaan xilkan kala wareego wasiirka waxbarashada iyo intii isaga la shaqaynaysay aad baan u bogaadinayaa aad baan u ammaanayaa waxaan aaminsanahay inay muddadii wasiirkanu joogay inay waxbarashada meel ay aad wax uga qabteen ay meel sare gaarsiiyeen ay isbedelo iyo reforms loo baahnaa ay qabteen oo ay ammaan ku mudan yihiin oo wasiirku waa ammaan ku mudan yahay anu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in wasaaraddan la ii dhiibay